Somaliland waxaa koob istokiimay ee bishii hore ka qabsoomay doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Haddaba telefishinka Bulsho ayaa arrintaasi waxa uu wax ka weydiiyey fanaanada Khadra Daahir Cige oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan dhulka Soomaalida. Waxaan ku booqanay hoyga ay ka degatay magaalada Hargeysa. Runtii in badan oo daawanaysa marka ay Khadra arkaan wax laga yaabaa in dib u xasuustaan fankii ay ka mid ahaan jirtay Khadri balse maanta arrin fan lagama hadlayo maadaama Khadrina ay hore u sheegtay in fankii ay ka baxday. Khadra telefishinka Bulsho isoo hagaama celinaya wareysigan kooban aad hoygaaga ku siinaysid ugu horreyn ku soo dhaw telefishinka. Nagiib iyo telefishinka Bulsho asxaabta kula socota Oday iyo Sakariye iyo Bulsho TV waan baan idin salaamaya. waxaan ku faraxsanahay sida ay soo booqateen ee aad wareysiga wanaagsan iga qaadaysaan waan ku dhawahay Nagiib. Khadra dhawaan Somaliland waxaa ka qabsoomay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. bal hadda sidoo aragtaa qaabkii Somaliland uga qabsoontay doorashooyinkaasi. ما شاء الله دي doorasho lama yiraahdo waxay ahayd doorasho dhaaf bay ahayd tani doorasho dhaaf ayay ahayd waxaan horta markii ugu horeysay u hambalyeynaya oo aan halkan hambaliye ballaaran uga jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku hambalyeynaya siyaasaddiisa fiican iyo odaytinimadiisa fiican iyo wanaagga uu ka sameeyay doorashadii maanta dhacday taasoo ah inuu na gaarsiiyay heer la yiraahdo hal la qadariyo codka bulshada qofka soo baxaya codku haysto hal la qadariyo heer uu na gaarsiiyay ayaan ku hambalyeynaya doorashada waliba waaba tii ugu horeysay u maleynaya intaan anigu maqli jiray laba doorasho is saaran ayuu madaxweynuhu qabtay wuu ku mahadsan yahay taasoo waliba aanu caalamkan waxba uga baahan ee ay noqotay inuu wixii wadanku lahaa iyo hantidii wadanku lahayd doorashadii dhexdeena uu ku qabto oo ay nabadgelyana inoogu dhamaato madaxweynaha intaasaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay xilka u sii adkeeyo inuu halka fikirka wanaagsan u maanta hayo mid ka sii wanaagsan inuu umadiisa sii gaarsiiyo waxa iigu xiga labada gudoomiye ee xisbiyada ucud iyo wadani oo iyaguna dadaal fiican sameeyay runtii oo odaytinimo iyaguna ku dhaqmay oo aan buuq iyo qaylo samaynin laakiin wixii waajibka ahaa maray waxaaba intaaba ka sii qiimo badan shacbiga reer Somaliland ee muwaadiniinta ah ee xaqa iyo garashada iyo sharafta badan leh ee u dareera mulba doorasho qof iyo cod ah oo aanay cidna ka baryin oo qofku codkiisa uu isagu cid doonayo siinayo shacbiga marxaladda gaaray ilaahay waxaan uga baryayaa inuu uga sii siyaadiyo waana mahadsan yihiin 100 jeer bay mahadsan yihiin waxa kale oo mahadsan oo aan marnaba inaga go'ayn xusuustooda waa ciidamada qaranka Somaliland ee mar walba nabadgelyada suga ee mar walba hagaajiya ee nidaamka iyo komishinka wanaagsan ee hagay ee hufay ee kala sifeeyay shaxdan quruxda badan inoo soo dhigay aad baan iyagana u hambalyeynaya waxaan hambalyeynayaa musharaxiintii soo sharaxday ee aadka u faraha badnaa intii soo baxday intii hadhayba waan hambalyeynaya waxaan leeyahay de adduunyadu maanta uun maaha bariba waa la gaari doonaa ninkii maanta hara waxa weeye bari ayuu noo yahay kayd ka maanta soo baxayna maanta ayaanu uga fadhinaa inuu shaqo wadanka u qabto marka dhammaantiin waan idin hambalyeynaya aad baa u mahadsantihiin. Khadra haddaynu dhinaca doorashada guud aynu ka dhimaadno tan iyo intii ay komishiga ku dhawaaqeen natiijada hordhaca waxaa hirda weyn loogu jiray maayarnimadii caasimadda Hargeysa walow madaxweynaha Somaliland habeennimadkii xalay toolaheed ee ku odeeyay arrintaasi oo looga hadhay maayarnimada caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge bal hadda sidoo u aragtaa tanaasulkaasi Cabdiraxmaan Soolteelka uu sameeyay iyo ka odeynta madaxweynaha horta Nagiibow labada inan baan ugu eedaanu ahay waalid baanu ahay waana inamadii iftiinkii wadanka ahaa Soolteekana shalay buu inoo shaqeeyay oo wixii karaankiisa ahaa inoo qabtay Cabdikariinna maanta ayaynu uga fadhinaa wixii inoo qaban lahaa hase ahaatee waxaan ku hambalyeynayaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Soolteeko maadaama isaga oo
samayn karayay wax walba oo khalada ama saxba samayn karayayba inuu tanaasulay uu madaxweynaha taladiisii qaatay oo si odaytinimo leh uu yidhi anna waan u tanaasulay ayaan ku hambalyeynaya ugu dambeyntii khadra maxay tahay fariintaad u diraysid musharaxiinta hadda ku guuleystay golaha wakiilada iyo deegaanka waxaan u dirayaa horta intii soo baxdayba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryaynaa in ilaahay xilkaa idinku asturo in ilaahay idin tuso dariiqa saxa ah wax badan bay Soomaalidu cabataa inamada maanta soo baxay waxa la idinka rabaa shacbiga cabanaya ina ka bisaan cabashada ina u shaqeysaan sida xaqa ugu shaqeysaan dadweynahana waxaan leeyahay ha loo ogolaado inay xafiisyada ku shaqeeyaan madaxdu oo ha laga daayo buuqa iyo caburinta madaxduna waa inay ugu shaqeeyaan sidii la arki jiray ay ugu shaqeeyaan shacbiga oo hawlahooda ay u kala saaraan intaas aan faraya نجيب عبد الله على تلفزيون كعالمي قبل شو مقالة أرجيسة